خيارات سو دواada waxaan bilaabeynaa casharo ku saabsan interview questionska sida coding interview macnaha coding interview questionska waxaan isku dayayaa inaan soo gagaabiyo aan boobsiiyo sina ugu daalin codsi badan ayaa ii yimid oo ku saabsan rag badan oo injineero ah oo IT ka soo baxay ayaa markay shaqooyinka tagaan ayaa badanaa su'aalahan oo noocyadan oo kale la weydiiyaa waana ku soo adkaatay qaarna waa ku baasaan halkan waxaan rabaa inaan ka qeexo company-ga wuxuu rabaa inuu fiiriyo qofka bini aadanka algoritmiga qaabka uu algoritmiga u xalinayo sida maskaxdiisa ay u shaqeynayso problemkana saad u takal gareynaysid ayaa la fiirinaya marka saa daraadeed waxaan isku dayaynaa si taxana inaan u wadno ilaa inta xabaan ka samayn karno casharkan kii koowaad waaye maanta waxaan sameynaynaa two sum waxaa loola jeedaa problemkan waxa waaye inta waa ka akhri kartaa Soomaalian ku sheegayaa array baa lagu siiyay arrayga waxaa la nums array marka waad garanaysaan waa meel yar oo xog badan la gashto waaye hadda integer noogu jira lambaro okay indiceskaas meesha ku jira hadda marka waxaan la ka rabaa inaan soo helno labada lambar oo markii la isu geeyo keenaya 9 okay oo ku celinaya labada lambar oo markii la isu geeyo 9 keenaya logical la rabaa inaan meesha la imaano two logic laba qaab jira marka lagu xalin karo qaab waxa la dhahaa brute force approach kamaniyaashu ma jecla performance uma fiicna iyo space complexity uma fiicna labadaasna waa laba wax muhiim ah in macnaha waqti qaato iyo in space badan qaato labadaba way fiirinayaan company-gan moogtaa resources waa isticmaalaysaa computer isticmaalaysaa application dhisaysaa application culeys noqdo lama rabo saa daraadeed company-ga wuxuu ku jaabinaa waxa waaye logigaaga ugu fiican aad keeni kartid marka hadda brute force approach ma rabno inaan isticmaalno marka inaan baranno oo iyada aan ku wadno wax fiican maaha maxaa marka optimal ah optimal solution waxaa noqon karaa inaan maskax kala keenno fikirka marka waxa waaye waxaan samaysanaynaa waxaan isticmaalnaa data structure la yiraahdo hash table ama hash map aniga java aan ku sameynayaa luqado badan lagu sameyn karaa haddaad reer python qaado luqada doontaa ku sameyn kartaa okay let's see hadda marka waxaan dhahaynaa arraygan haysanaa waxaan ka rabaa laba lambar oo 9 keenaya fikirka ugu dhaqsaha badan la sameyn karo waxa waaye inaad samaysto hash map ama hash table ama wax lagu shuban karo kadib waxaad sameynaysaa lambarka ugu horeeya soo qabanaysaa iyo lambarka raba inaan helno baan kala jaraynaa 9 haddaan ka jarno 2 waxaa noo soo baxaysa 7 waxaan fiirinaa marka in 7 ay ku dhex jirto maxaa la mapkeena ama hash tablekeena ama data structure ka haysano inay ku dhex jirto haddii aysan 7 ku dhex jirin waxaan sameynaynaa mapka gudihiisa ama data structure waxaan dhex gashanaynaa lambar 2 ayaan gelinaynaa lambar 2 iyo index ku haysto sababtoo ah ugu dambeyntii jawaabta markaan ka shaqeyno waxaan la ka rabaa inaan soo celino labada lambar oo keenaya indexyaashooda ayaga lama rabo hadda array waxay leedahay index waxa la dhaho intuu ka bilowda 0 1 2 iyo 3 way hadda waxa 9kan keenaya waxa waaye waa index 0 index 1 marka la isku daro ayaan 9 keenayna waa sida u qoran 0 iyo 1 way horaan ka bilaabayna marka in dahayn okay in java waxa jira collection la yiraahdo data structure la yiraahdo map okay map marka waa interface caadi ahaantii laakiin si waxaan ka isticmaalaynaa class kale asaga ku sameeyo implementation jira okay integer all right good waxaan wada bixi karnaa waxaan doonaa map hadda u bixinayna kan okay markaas waxaan leenahay new hash map okay marka tan waxa waaye waa iska clear waa kaliya waxaan ka sameysanayaa object next waxa waaye waxaan rabaa marka inaan sameeyo inaan marka ugu horeyso aan isticmaalo for loop oo aan traversing ku sameeyo arrayga oo dhan halka inta ka bilaabo ilaa xagga ku geeyo kan inaan fiiriyo kan fiiriyo waa dhamaatay afar markaan kulligood fiiriyo waa iga dhamaatay hal mar okay for loop java sana loo qoraa marka waxaan leenahay int waa variable inaan sameysanaysa 0 ka bilow waxaan mal 10 waan soo qaadanay waxaan mal wadaad fiirsan videoshada waa kaleysaan for loop wuxuu yahay iyo si qaabka loo isticmaalo laakiin hadda waqti kuma dhamanayna okay waxaan leenahay marka arraygan aan haysano meeqa xabo ka kooban yahay 1 2 3 4 marka haddaan rabaa inaan ogaado arraygan inta xabo ku dhex jirta inta xabo ka kooban yahay wax ku dhex jira arrayga soo qabanaysa waxa dhaysaa okay nums.length okay then waxaan leenahay I++ waa sidii for loop ku shaqeynaya I think for loop kina badan kiisna garanaysaan all right
hadda marka waxaan samaystay for loop oo ku sameynaya traversing ama dhex maraya dhag kan u gala mid walba noo soo qabanaya. First waxaan ka rabaa marka inaan xisaabiyo 9 laga jaray 2 inaan xisaabsado. Marka waxaan samaysanayaa variable aan ku shubto. Okay, int current number. Okay, taasaan dhahaynaa markaas waxaan leeyahay let's say current number waxaan ku dhex shubanayaa waxaan rabaa inaan kala jaro 9 in 2 ka jaraan rabaa. Okay, 9 si ku soo heli karaa. Yes, 9 waa haysanaa. waan la siiyay mujda method kan array iyo wuxuu siiyay target numberka waa 9. waxaan dhahaynaa marka target waxa ka jirta minus okay nums and array-gana gudihiisa waxa ka soo dhex qabanaynaa nums saasaan dhahaynaa oh sorry sl rabaa kan ku jirto. Okay, saas waay. marka halkan e0 ka bilaabanaya moogta laada halkan 0 ka bilaabanaa 0 inta ku jirta macnaha ay hadduu 0 yahay waa iska 0 moogta. waxaan fiirinaa marka array-gan lambarka ugu horeeya oo index 0 haysta kee waay waa 2 waay. so 2 gaas waay. Okay, 2 ka ugu horeeya maxaa marka sameynay 9 ka jar 2 intaan 2 ina siinay maxaa noo soo haray 7 inta. good, waxaan sameynaa testigeena marka waxaan leenahay if marka haddii mapkeena contains key waxaa loola jeedaa waa method mapka kusii dhex jira oo na siinaya keygan key waxaa laga wadaa haddaa fahant key waxaa laga wadaa mapkan waxaa gelaya key iyo value. marka waxaan leenahay keygaas ma haysa valuegiis. okay, waxaan leenahay marka contains keygan ma ku jira key waxaa ula jeedaa lambarkan ma ku jira. alright, contains key oo ah current number. that's it. alright, haddii laga soo dhex helo that's it. waaba kasoo jawaabta waxaan soo qabanayna marka labada lambar indexyaashooda waa soo celinaynaa. okay, waxaan leenahay marka return waxaa noo soo celisaa new int. okay, saasaan leenahay okay, waxaa noo soo celisaa waxaan ka rabaa inaan la soo celino mogtahay waxaan soo celinaynaa nums waa ognahay nums I halkan maxaa laga wadaa waxaan soo celinaynaa exactly array-ga gudihiisa waxaan ka wadaa mapkan lambarkii kan ahaa lambar 2 ayaan leenahay inoo soo qabo asaga valuegiisa iyo markaas index uu ku dhex jiro meeshuu kaga jiro bahalka. anaa si fiican ku faahfaahin doona. haddii laga soo waayo marka let's say contains key waa la fiiriyey kan ma ku jira kuma jira waa marka koowaad moogta waa ka soconayna waxaan samaysana marka waa inaan mapka wax ku shubanaa marka waxaa leenahay map waxay inoo dhex gelisaa okay put mapka waxaa noola geliyo waxaan gashanaynaa marka mapka gudihiisa waxaan ka rabaa inaan ku dhex ridano mapka gudihiisa nums. okay, because of hadda waxaan ula jeedna waxa waaye sorry meesha waxaan ka khaldanaa umaynaa halkan waxaan dhex gashanaynaa maaha inaan gashanaa waxaan ka rabaa moogtahay labada key waxaan ka rabaa labada index aan ka rabaa marka saa daraaddeed aan dhahnaa map dot get waxaan umaleysaa inay tahay get gudihiisa waxaan kasoo dhex helinaa markaas haddaan u dhiibno current num numberkan valuegiisa waa current num. that means kan wuxuu soo qabanayaa value-ga current num iyo index marka labada halkaas soo geli doona. halka marka mapkeena maadaama waxa laga soo waayo gudihiisa waxaan gashanaa hadda nums oo I ah iyo I. yes, haddii marka waxaan o dhan ay shaqeyn waayaan waxaan soo celinaynaa return mar walba waxaan soo celiyo waay mogta new int. okay, an empty waxaan soo celinaynaa array. okay, let me marka hadda inaan explanation ku sameeyo waxaan sameynay map baan sameysanay. map haddaadan garanay in map soo baartaa fiican u shaqeeyo waa collection ku ka mid yahay waa kind of data structure waxaa loogu talagalay in key iyo value lagu shubto. key value waxaa laga wadaa shay baad gashanaysaa waxaad dhex gashanaysaa kaba soo qaad 2 oo keyga ah valuegeedana uu yahay 5 oo kale. haddaan doono string aan dhigi kartid waxaad dhigi kartaa Hasan iyo daadiis. marka waxba la gashtaa halkaas
muhiimadda markaan u socono waxa waaye kan waxaan u samaystay keliya waa waxbaan ku shubana waa weel yar aan haysto kadibna waxaan dhahay for loopkan inuu traverse ku sameeyo wax dhex maro kadibna waxaan sameeyey target numberka oo 9 ah ayaa waxaan ka jaray value ugu horeeya oo 2 ah okay value ugu horeeya 2 aan ka jarnay value marka macnaha labadoodan kala jarkooda wixii soo baxay ayaa waxaan ka dhex fiirinayaa inuu map ku dhex jiro marka ugu horeysa meeshan ma shaqeynayso sababtoo waxa kuma jiraan kadib waxaan sameynayaa halkan waxaan gashanayaa value-ga lambar 2 ahaa iyo index-kan gashanayaa oo ah 0 marka 2 iyo waxa ii galaya booskiisa oo 0 halkan next haddana mar labaad soo wareegaya next time waxaan tegaynaa 7 hadda maraynaa marka dambe uu follow-ku soo laabto haddana wuxuu fiirinaa 9 wuxuu ka jiraa 7 waxaa soo haraysa 2 labadii ayuu wuxuu ka dhex baarayaa in ay ku jirto kiiga mogta kana noo ah mogta labadii inay meesha ku jirto yes way ku jirtaa then labadii waa laga soo helay sooma waxaan sameynaa marka waxaan soo celinaynaa labadan indexkeedii oo ayadii ay ku jirtay iyo hadda cameron oo 7 ah marka 2 iyo 7 soo baxaysa indexyaashoodii marka indexkan 1 noqonaa indexkan 0 noqonaa exactly that's it haddaan daraan dhahno bismillah absolutely waa ku guuleysanay you see all the cases marka loo dhiibo waa ku guuleysanay aad baa mahadsantihiin 10 ku xiga waxaan qaadan doonaa iyadana another algorithm kan waxaan jeclaan lahaa inaan taqriiban qofka haddii ku adkaato dhowr jin isku dayo qaabka loo xaliyey mar walba lagu dhaho laba shay oo la isu geeyey ayaa targetkan keenaya qaabkan oo isticmaalsa midkan ka adagaa jira oo ah 3 xabo oo isku darsamaya oo targetkan keenaya uu ka adagaa waxay 4 jira asagana marka step aan u sameeynaa kana taas inta ku keenno ama sintiin barakallahu fiik. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.